Roma cutubka 15 kuweena xoogga leh waxaa inagu waajiba inaynu qaadno itaaldarrada kuwa xoogga yar oo aynaan nafteenna ka farxin midkeen kastaaba deriskiisa ka farxiyo inuu ku wanaagsanaado oo ku dhismo waayo masiixiiba naftiisii kama uu farxin laakiinse sida qoran caydii kuwa adiga ku caayay ayaa igu kor dhacday waayo wixii hore loo qorayba waxaa loo qoray waxbarashadeenna inaynu dulqaadashada iyo gargaarka qorniinka rajo ku lahaanno ilaaha dulqaadashada iyo gargaariddu ha ka dhigo in midkiinba midka kale la fikir ahaado sida ciise masiix sidaas daraaddeed isdhoweeya sida masiixuna idin dhoweeyey in ilaah la ammaano waayo waxaan idinku leeyahay masiixu wuxuu noqday kuwa gudan midiidinkooda runta ilaah aawadeed inuu u xaqiijiyo ballamadii awowayaashii hore la siiyey iyo in quruumuhu ilaah u ammaanaan naxariistiisa sida qoran sidaas daraaddeed waxaan kugu ammaani doonaa quruumaha dhexdooda oo magacaaga waan u gabi doonaa oo haddana wuxuu leeyahay quruumahow la reereeya dadkiisa oo haddana rabbiga ammaana quruumahoo dhammow dadkoo dhammuna ha ammaano isaga oo haddana isaayos wuxuu leeyahay waxaa jiri doona xididkii yasaay iyo kan u kacaya inuu u taliyo quruumaha isagayna quruumuhu wax ku rajayn doonaan ilaaha rajadu waa idinka buuxiyo farxad iyo nabad oo dhan idinkoo rumaysan si rajadiinnu ugu badato xoogga ruuxa quduuska oo aniga qudhayduna waxaan idiin hubaa walaalayaalow inuu wanaag idinka buuxo oo laydinka buuxiyey aqoon oo dhan oo aad kartaan inaad iswaanisaan laakiinse siyaalaha qaarkood dhiirranaan badan baan idinku soo qoray inaan idin xasuusiyo nimcadii xagga ilaah layga siiyey aawadeed inaan dadka aan yuhuudda ahayn u noqdo midiidinkii ciise masiix anigoo shuqulka wadaadnimada u qabanaya injiilka ilaah in sadaqada dadka aan yuhuudda ahayn la aqbalo iyadoo quduus lagaga dhigay ruuxa quduuska haddaba xagga ciise masiix waxaan leeyahay waxaan ku faano waana wax ku saabsan ilaah waayo kuma dhici doono inaan waxba ka hadlo wixii masiixii iga dhex shaqeeyey mooyaane dadka aan yuhuudda ahayn adeeciddooda aawadeed oo uu igaga dhex shaqeeyey hadal iyo camal oo uu ku sameeyey xoogga calaamooyinka iyo yaababka iyo xoogga ruuxa quduuska oo sidaasaan injiilka masiixa ugu wada wacdiyey yeruusaalem iyo hareeraheeda iyo ilaa illurikoon sidaasaan u hawaystay inaan injiilka ku wacdiyo meel aan masiixa awel lagu magacaabin si aanan ugu duldhisin aasaaska nin kala dhisay laakiinse sida qoran waxaa arki doona kuwo aan warkiisu u iman kuwii aan maqluunna waa garan doonaan sidaas daraaddeed marar badan baa layga hor joogsaday imaatinkii aan idiin iman lahaa laakiinse haatan anigoo aan meelaha kan meel dambe ku lahayn oo idiin boholyoobayey sannado badan inaan idiin imaaddo markaan isbaanya tago waxaan rajaynayaa inaan socdaalkayga idinku arko oo idinna aad halkaas iga ambabixisaan markaan cabbaar idinku raaxaysto dabadeed laakiinse haatan waxaan aadayaa yeruusaalem inaan u adeego quduusiinta waayo dadka makedoniya iyo akhaaya waxay aad u jeclaysteen inay wax u ururiyaan masaakiinta ka midka ah quduusiinta yeruusaalem joogta way jeclaysteen waana ku waajib inay sameeyaan waayo dadka aan yuhuudda ahayn hadday noqdeen kuwo ka qayb galay waxyaalahooda ruuxa dee markaas waxaa ku waajiba iyaga inay ugu adeegaan waxyaalaha jidhka sidaas daraaddeed markaan tan dhammeeyo oo aan iyaga nidhahan ku hubsado idinkaan idinsoo mari doonaa aanoo isbaanya u socda oo waxaan ogahay markaan idiin imaaddo inaan ku iman doono buuxnaanta barakada masiixa walaalayaalow waxaan idinku baryayaa rabbigeenna
ciise masiix iyo jacaylka ruuxa inaad igula dadaashaan tukashooyinkiinna markaad ilaah ii baridaan in layga samata bixiyo kuwa caasiyiinta ah oo yuhuudiya jooga iyo in hawshayda aan yeruusaalem u qabanayo ay noqoto mid ay quduusiintu aqbalaan inaan farxad idinku imaaddo haddii ilaah doonayo oo aan idinla nasto ilaaha nabaddu ha idinla jiro kulligiin aamiin